وعن wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halka naga daawanaysan waa maqalti ku soo muuqaalkana maanta hadoonta maqalka u gudubin daawada hadayta markii hore channelka soo boqoto subscribe saar sidoo kalena video la garay sibaad u heshin muuqaalada qurux badan oo mar walba barta aan u soo gudbino oo aad ka xiiso haddaba waa misalwaal oo loo taxaabay xabsigaasi Hargeysa kadib markii gashay safar dhulka Addis Ababa ilaa iyo Hargeysa markii gashay waxaan ognahay miswaal markii hore inay ahayd ay ka soo tagtay magaalada Muqdisho diyaarad oo soo tagtay kadibna ay maatay magaalada Hargeysa oo la xiray lagu qabtay barta airportka kadibna lagu soo tarxiilay laguna soo celiyay magaalada Muqdisho haddaba miswaal ayaa waxay ka maarmaysay magaaladaasi Hargeysa ay ka maarmaysay Somaliland waxay sameysay maadaama markii hore oo safar diyaarad ay gashay haddana waxay tagtay Muqdisho ka duushay Addis Ababa ay tagtay kadibna Addis Ababa ilaa Hargeysa ayaa waxay isku dayday inay ku gasho gaariga ay ku gasho gaarihan haddaba ayadoo dhulka safarka isticmaalaysa ay Hargeysa ka tagtay kadib markii lagu arkay bartan social media ayaa askarti ay ku arkeen askarti waxa la ogaaday miswaal inay ku sugan tahay dalka Hargeysa kadibna meeshada ayaa lagu imaaday waxa loo sitaxabay xabsigaasi ayaa loo sitaxabay miswaal ayaa haatanba wanayso oo waxay ku dhaxoonaysaa xabsiga gudihiisa ay ku dhaxoonaysaa waxay leeyihiin dadkan xasilmada ku jirta maxawaay haddaba waxaan ognahay miswaal ayaa abdar Soomaalida markay u kacirabeen ayaa waxay tiri sidoo kale ay xabsiga ku jirto ayaa waxay iga badan qabiilkay oo caabitaan uma baahni meeshii ayaa qabiilkande balse dadkii ayaa taas iska dhigay tireen oo miswaal qof cabiin ma jirto ilaa hadda si kastaba ha ahaatee ilaa haddana waxay ku jirtaa xabsiga ay miswaal ay ku dhex cunaysaa bariiska haddaba sababta keentay ilaa hadda loo diidan yahay miswaal inay soo gasho dalkaasi Somaliland ayaa waxay hadda ka hor inay markii laga soo video ay duubtay ay ku caanayso kuna aflagaadeynayso Somaliland askarteeda ay ku aflagaadeynayso haddaba videogaas ayaa ilaa hadda askarta ku haystaan oo mar walba markay Hargeysa ay tagto oo sababta loo xiray ay tastay balse miswaal ayaa ayadana ilaa hadda waxay ka qorsan laadahay dalkaasi Somaliland mar walba marka ka dambaysa marka la soo xiro ay haddana kasi marmilada ay ku sii laabanaysa balse marka hore markii la soo xirayay oo diyaaradda lagu soo celinayay dalkaas Muqdisho lagu soo celinayay waxay sheegtay hadii aan ku laabto Somaliland ilaahay moos iyo dhig ay ku tilmaamtay haddaba balse taasi way ka dhuglugaanaatay oo mar kale ay ku laabatay miswaal balse dadka ayaa isweydiinayaan maxaa waay sababta keentay miswaal inay mar walba ay u tagto dalkaasi Somaliland maxaa waay sababta keentay balse dad qaar ayaa isweydiinaya oo waxay leeyihiin waxa jiro arrimo jacayl oo wiil ayaa meesha joogo oo Hargeysa dadka qaar ayaa waxay isleeyihiin gabadhaasi wiilkaasi wuxuu rabaa inuu dhibaato waayo wuu ugu imaan karay Nairobi oo wuu ogyahay ayada in loo diidan yahay Hargeysa balse shacabka ayaa taas ka doodaya oo waxay leeyihiin wiilkaasi wuxuu rabaa gabadhaasi inuu meesha ku dhibaateeyo waayo asaga ma rabo inuu soo baxo Nairobi maadaama ayada loo diidan yahay haddaba waa kana sababta keentay in loo diidan yahay wadankaasi inay ka gudubto oo Hargeysa mar walba markii tagto loo xirayo sababta keentay in mar walba loo diido oo video lagu haysto waa kana laakiin dawlad meesha ma ku haysatiin dad inta meesha joog siiba nimanka airbarka joog taliyaasha wicilada qaniisiinta caloosha weyn anaa waso haddaani imaada qudhaa moos Allah iga dhigo keeri jabay Allah iga dhigo haddaani imaado waa bani nacab haddaba sidoo kale hadalaynta TikTok la isla dhaxmarayo miswaal iyo wiilkaasi aan isla taawna kadibna isku salaamna alaykum soo dhow binta Amira ها ولا الوان كدوه هاي أدبر مأسنتين ولا وحن أنا ويوم ما كنت أرسل لها فرت ولا لا أنا أدبر ما أنت وقف معي ما كان أرتي يدو أويس أنا أنت إسكا صوت كليب بتاعي إسكا دوتين عيد كلا كدوتين ممكن لكن يدو أوي ما كان أرتي والله أدبر نروح معي قص دمر بان هاي وين دريمي كراي يعني قص دمر الله حراي وما قرتي marka walaal inay dumarnimada xataa hay'adu haday qaldantay inay dumarnimada inanta lagu qadariyay ahay toos raggan iyo hablay dhaleen way la dhasheen inay dareemaan bay ahayd xanuun yacni inaad ku oohiso iyadoo iska faraxsan oo joogeeda iska qaadanaysa aad ka nixiso oo jeel geyso oo ka tiinadayso yacni wallahi waa wax aad looga qurux badan yahay marka waynu ceebowne walaalo ceebtuna dee ma haysato dawladdeena oo dhan bayna haystaa iyo waxa meesha mas'uuliyiinta meesha haysato dhan waana arrintaas waa arrin qalada waxaan anigu jeclahay dawladda Somaliland inay raali gelin degdeg ah ka bixiso waayo يعني قلد بيسميين قلد كاسوم إن أنت أسوم قف ما هبلا صومالي دم قف وياي ما قرأت هذه Soomaaliduna waa dad walaala ah
oo dad meel kala tegaya maaha waa la isdhalay maxay yeetay waa la isla dhashay waa isku dhiig baynu nahay inantaas waxay halkaa u timiday waa inamadoodii oo say inay dadkeedii bay u soo maxaday shisheeye halay ma u iman lahayd shisheeye shalay waa la celiyay hadday xumaan qabto oo cuqdadi ka buuxdo ama dhibaatadii shalay ku dhacday ay xasuusan tahay hargeysa mar labaad kuma soo noqoteen laakiin waxay doonto way tiri haddana raalli gelin bay bixisay waana dumar ina dumarnimadeeda lagu qadariyay ahayd waxaana leeyahay Somaliland mar dambe waxa ay wax la midaba ha ka digtoonaato waxa ha ka digtoonaadaan ma garatay marka aad baan idin salaamay walaal warheeday walaal anaguna calanka xadrada soo dhow walaal aad baan idin salaamaya horta waan ka xumahay inantaas laakiin hal su'aal baan soo weydiinayaa oo hadeer waxaad tirahdeen inaan jeceshahay oo timi maana inanku muxuu inanta ugu tagi waayay inanta hal mar haddii la celiyay diyaaradii laga celiyay oo sharaftii laga qaaday mar labaadka maxaa inanta ku kalifay inay jidka laga soo gasho muxuu ugu tagi waayay inanta haddii inanta calaasha walaal haddaan ku jawaabo ninkii nabiga caay xamar uu ka baqaya ma tagi karo oo ninkii nabiga caay waa la gowracaya waa Soomaaliga oo dhan baa garanaysaa jaahiliina oo garanaysaa calayhi salaam diinta iyo nabiga wax ka sheegta laakiin Nairobi ugu tagi karay meel kasta ugu tagi karay ana waxaan aaminsanahay inanta sharafteedii baa la dhawray inantan biri kamaan haddii video laga soo duubo oo qofka iska soconaya ee halka ka soo wareegay markii horena ma garanaysaa meeshii aan nagu sharfin biri haddii video laga soo duubo oo inaan ka yareeyay diintu ay video ka soo duubo maana ka sii xumaadnay inantii qaawan la arkay inanta maanta way nabad qabtaa waa loo xijaabay gurigoodii baa la geeyay laakiin anigu waan ka xumahay gabadh Soomaaliyeed gaarsan inta loo galay waxaan rabaa inanta in sharafde iyaduna inaan iska wareegayso walaalo diyaarad soo raacday luq kale ka soo gashay inaan yar hadana buurtii sii saaran أنا ما قرني صاب إمكاد أنت وإلهي ده أسطورة قرني صاب حافظ ودي هسكتك السلام عليكم حبلها شرفت ودي كتشرت حبلها شرفت ودي دينا أنت لما نعذبين لما نعاين تقول صار مركب مر لبعض تكون باني يوم بسكير على النظام تقف سكوري كده والله مخلص ما way muudka noo yara gal siman qurasin ay siman qurasin war loo loo sug muudka noo yara gal noo joog inantaasan sinay ka soo risay siman qurux السلام عليكم السلامي ka qaad walaal horta anigu arintan aad baan uga xumahay boqolkiiba boqol reer Somaliland gabadhaas horta si xun bay u galeen waa markii labaad ay sidaas u galaan gabadhaas reer Somaliland dad Soomaalinimo malaha ma sheeganayaan gabadh Soomaaliyeed soo gabdhaha waa la xeerin jiray xaq iyo xuquuq bay lahaayeen gabadha yar ee miskiinta ee intay qaadeen ay kolba jeel ku xidhayaan dad Ilaahay ka yaabaya miya dadkan horta marka walaalo ani waxaan leeyahay oo ku darsanayaa fikirkeyga gabadha Mrs Sool waxaan leeyahay waxba ninna walaalay ha ka jeclaanin wax nin laga jeclaadana ma istaahilaan wax macnaa nin oo loo raadsadana ma istaahilaan ilaahay haddana xabsigaas ha ka soo daayo maxaan dhahay waxaan leeyahay reer Somaliland waxaan leeyahay walaalooyino dad la wada dhashay baa leeyahay oo qaraaba leeyahay ehel baa leeyahay iyagu markay dadka u imanayaan ku soo qulqulayaan cidna waxba ma yeesho cidna ma dishay ayar waxaan leeyahay inigu waad socod badantiina waad socotiin gabdhaha Islaameed iyo dadka Soomaaliyeed iska daaya baan leeyahay xabsiyada ku xidhanaysiin cusurnimadu wax fiican ma aha adduunka waa laga tagi marka ma dhameys wala ana waxaan wali ma aragtay inaan